ku qoran tahay laakiin luqadiina Soomaaliga ka horeysay 8 ilaa iyo 12 oo sano bay jirtaa luqadiina taariikhdiina baadan garanayna taariikh kale tabaad u doodaysa Ethiopia goorta dawlad noqotay baa ku sheegaya 1889 bay noqotay waliba 1889 bay noqotay miililik xilligu jooga bay noqotay dawlad had ma lahayn laakiin dawladnimo baa noola aqoonsaday laakiin 1910 baan noqonay wadan had leh ma taqaana dhulka ogaadeen la dhahay goorta qaadanay waxa qaadanay 1948 baa qaadanay anagoo konton sano anagoo dawlad baa dhulka Ethiopia waxay ku dhisnay dhulka inay xoogto dhulka Suudaan dhul baa ka xoognay Eritrea dhul baa ka xoognay Soomaaliya dhul baa ka xoognay Kenya dhul baa ka xoognay Eritrea Ingiriis Talyaani baa haystay Ingiriis baa 10 sano haystay kadib anagoo nagu soo wareejiyay waa sida dadka Soomaalida looga dhaadhiyay Ingiriis baa nii gumeystay wadan ka duwan baatiin Soomaaliga Eritrea waxa la dhahay Talyaani baa hadda ka hor nii gumeystay laakiin Ethiopia baa ka mitiin Ingiriiska dunida dhan buu qasay wuxuu ahaa dalaal buu ahaa dadka wax kala iibiyay dhulalka buu ahaa dhulka Falastiin wuxuu siiyay dadka Yahuuda buu siiyay Somaliland wuxuu dhahay dhulkan idinka Ingiriis baa nii gumeystay dadkan Soomaalida walaalihiina ah shaqo isku maalidiin wadan kala baad aheedeen waa bareen washka ku sameeyay Ingiriiska weeyaan waxaan ku weydiinayaa wareer inuu taariikhda sayla iyo goorma iyo taariikhda anaka hadal baa noo socdo marka aad qaadanaysaan waqooyi galbeed yaa saxiixay magaciisa ma taqaan ninka saxiixay kulli aan waan aqaan ما كوادا Soomaaliya madaxa saxiixay Soomaaliya لا wax madax la dhaha ma jiro waa sida Muuse Bihi amal Muuse Bihi hada dekada sayla soo ma saxiixin waa rag tuuga bay ahaayeen hatta qabiilkooda lama tashanin dadka Soomaali lama tashanin waxa saxiixanin la dhaho nin generaal ah oo Ethiopia hela salaas oo soo dirsaday in wel prime ali jiro generaal Ingiriis ahay in laba oday oo Soomaali oo waxba garaneen oo bila education ahayd wala soo wada shahba loo shubay wala warqada saxiixa wayna saxiixeen hakadigin wax dawlad ah taasaba ka wada hadda marka soo gudbo waxa weeye dadka Soomaalida uqdad baa dhahdooda laga abuuray tusaale yar baan ku sheegay siyaad bar anaga wuxuu nagu abuuray Tigray Liberation Front oo la jiray TPF iyo Eritrea Liberation Front oo ahayd TLF iyo Ogaadenia oo ahayd ONLF iyo Oromia Liberation Front oo loo yaqaan ONG loo yaqaan markuu nagu soo hubeeyay dhulkii bay qabsadeen dalka Eritrea siyaad barabaanaga jira hadaad ogtiin siyaad barabaanaga jira anagana waxa sameeyay jabhad la do SSDF iyo SNM baa sameeyay labadooda anaga noo shaqeynay ila today hata ani kula hadlay right now way noo shaqeeyaan adeemihii baan ku sheegay SNM maxaa laga wadaa markaa waa Somali National Somali National Movement bay waxa weeyaan dadka waqooyiga ka bixayeen okay 1978 waxaa noo imaaday SSDF waxa ka sii dambeeyay SNM oo 1984 ka imaaday markay imaadeen wax kale looma sameeynin ayagana Soomaali in lagu burburiyo baa loo sameeyay siyaad barana wuxuu sameeyay jabhad oo 4-5 ah si Ethiopia ugu burburiyo siyaad bara wuu ku guuleystay inuu na burburiyo anagana waa ku guuleysanay inuu na burburiyo ayaga burburina Soomaali marka waxa ku kala duwanad waxay ahayd jabhadii siyaad bara oo soo tababaray markay Ethiopia qabsadeen Ethiopia dawlad bay u sameeyeen laakiin idinka jabhadii SSDF iyo SNM iyo USC markay dhig qabsadeen Ethiopia bay u shaqeynayeen waxa la dhahay Soomaaliga ha isku keenina calama sameeysta nin walba qabiilkiisa sameey tusaale aad baan ku sheegi karaa 1989 dagaal baa waxa ka dhacay dila genocide la dhaho Booraba dadka reer Booraba xasuuqa waxay ahaayeen ciidamada Ethiopia iyo ciidamada SNM oo alooshood u shaqeystayaan Ethiopia la shaqeeyay okay aan ka soo gudubna marka xagga markay marayso dadka badana war waadiya waxaan dhahaa Ethiopia way ku mutaysatay in dekada barbaraba qolkiiba 20 la siiyo way idinko aad ogtiin fiiri dadka Somaliland degan fiiriya waxa jiro waxa la dhaho hawd reserve area baa jiro waxa la dhaha Gaashaamo Dawaale Jaamac Dubad magaalooyin 10 ka badan baa ku tiri kara oo dadka isaaka asalkooda degan maalin walba la xasuuqa idjoog dhihi karta kuma jirto
fiiri maalintii ugu dambeysay هاي waxa xasuuqaya maaha federaalka waa qabiilkan dawladdan No, karagsanaaday no. xaas ninkii maalin hore dagaalkii ka dhacay dawaalay 3,700 oo isaaq oo habaar Yunis baa lagu xasuuqay ninkii هاي dadka xasuuqaya waxa Soomaalida iyadu badanagu ma no aw baa ka dhacday ina hadaa qof damiir leh tahay ninka bariga Afrika ciidamada Ethiopia federaalka qaabilsan waxa la tashoma tafarra baa la dhahaa waa nin amhaar ah weeyaan ninkaas baa amarka bixi in dadka Soomaalida la xasuuqo dadka ogaadeenka masaakiinta adeeysi ayaga ana xasuuqay ayagaaba hor ahaynba tusaale inay hor ahaynba ku sheega ee la boorka madaxweynaha iyo waxa iyagu ah no Ethiopia sidaad u maleynaysaa ma hornimada noocaas ma ee la boorka jigjiga qof Soomaali mas'uul ka ma ahan isgaarsiinta jigjiga qof Soomaali mas'uul ka ma ahan korontada qof Soomaali mas'uul ka ma ahan sirdoonka qof mas'uul ka ma ahan shidaalka dhulkooda laga soo saaray qof Soomaali kuma jiro oo mas'uul ah adiga xornimada maxaad u taqaanaa in caalanka la wato qori la qaato jidka la soo socdo no waxa laga ilaaliyay meel walba Somaliland iyo Soomaaliyada halka boqolka qof daawanay waa dhageysanaysa ninka Etoobiyaanka wuxuu ku hadlay Ethiopia warkeedu waa cad yahay no waan isku noqonaa hal dawlad baan samaysanaa walaal ka baxay imanka Soomaaliland iyo xaas idageysa walaal hadaa damiir leedahay adiga baan kula hadlay gabar isaaq hataa ama gabar Samaroon hataa ani waan kala garanaya qabiiladiina maskaxda niga gaalay hataa gabar isaaq ama gabar Samaroon ama gabar Isa dadka dawaalay 3,700 oo lagu xasuuqay ciidamada federaalka Ethiopia ba xasuuqay ciidamada Soomaali ma xasuuqin hadalkayga si fiican u faham hadii qiimo leedahay kaalibal aaw adiga no waxba ma aawi kartid ma taqaana ninka maayarka Hargeysa haysto oo la dhaho hebel mooga ma taqaana inaadeer maxaan mid Ethiopian iska celina Mareykanka jooga xitaa nacaayo qabaandibada xaddan hayay dhibaatana haysata inaadeer tiri idageysa madaxweyne Mareykanka dhinac naga caayo adigaaga Ethiopian ka nacaayo dhibaba nima aynayo wala nima aynayo Soomaaliya waa smaqlaysan wala ayaga dhaxgari nima aynayo problemka dhigta waxay tahay lagu xijiyo haday baraarugtay ayda problemka ni haysta waxay tahay qabiil walba alam boo sameystay qabiil walbana wuxuu aaminsan yahay inuu qabiilka kale ka fiican yahay dhulkiina maalin walba la qaadanaya adiga hada waxa laga qaatay Ethiopia ka hoogtay dhulka weyn dhulka Somaliland laakiin kama haddi kartid intii tamir yaala lahayd adigoo gabar Soomaali ah muslim ah dadka walaalaha Soomaali ina la heshiisid aad midowdaan dhulkii xooga laga qaatay dib ku soo ishaleed ba dhulkii adiga haysata ba ugu sii daraysa oo maxaa adiga kugu jira imanka adiga maxaa kugu jira Soomaaliya inay burburto ama Soomaaliya inay dawlad noqoto maxaad ka dhaxfaysan imanka Ethiopia burburto iyo aday noosha waxba iguma dhex jiraan Ethiopia maxaa kugu dhex jira aniga baa ku sheegayo horta aniga Soomaaliya maxaa kugu jira سؤال شو أدي ويدس كبح إلى هذا فيري أنيجا أمهار بان سياسة جيس أفريقيا هذا لا سؤال سؤال شاد إمادة ويدي لهن أورما ده وهي سميني سواه له إكسبانديش لولكي بي بوبيسا أنا قد دقال بين لوجو هيسا إذن كأوجو دمبيو دتكينا بيحسو كيسا أوجو قف ماذو أوجو ميستا كجرو 2026 وقف صومالي كلية عالمك قف ماذو أو قف كلو ماذو قميسانك هل سؤال كويدنا حدي أمحارة صونا قطاد أمحارة توبي وكتلين جرتي تقريبا كسي ورئيسي هذي ديبو صونا قطو مولي waxaa ka sii shaqeynaysan Soomaaliland ina si maamushaan Soomaali kala si kala jarjartaan masa dhulkiina ku ekaa doontaan ina dhulka Soomaali qaadana baan ku tashana anaga laakiin idinki inaad midowda oo neeska ka elisiin baadiideen fiiri jaamacad la dhaha mataqaana tusaalaad baan ku sheegaya jaamacad Almas la dhaha jirta iyo Adama waxay ku taala Hargeysa jaamacadaas aniga waa tagay 9 isha waxa ku sameynaya investigation جامعة ماركة تك ألماس بالله هرجيسة بيكوتالا آن ويا بابل library بيلاده بواك بيلوغ أكريستو بوك وهاجر لده the lineage the shadow of lineage of North Africa دتك إسركا دتك East Africa بالله شيء بوك أسوأ حكوا كورنين إثيوبيا باكوري أنا أمهار باره دتك أمهار ولكن دت هون ويا كار وها بوك أسكو كور وهو ليه إسركا سومالي كهال ماهن دتك سومالي ده وادد ليسكو جي ما بإسلا دالمبا balfiiri dadka Hargeysa ku nool waxa laga dhaadhiinaya dadka Soomaalida isku isir maaha waa dad la isku geeyay literally dadka Soomaalida baa la kala jajaraya ayagana waxay gaaraan laayihiin balfiiri ayagana waxay gaaraan laayihiin war dadkan isku luqad baanahan
isku diin baan nahnay isku midab baan nahnay gabar baan kala qabnaa gabar bay naga qabaan isku taariikh baan nahnay isku dhaqan baan nahnay isku dhul baan nahnay nin isku diin aanan ahayn ana isku dhaqan ahayn baa inuu ii yimaado wuxuu iga dhaadhicinaya in ayaga adow ay yihiin aniga ana mahar baan ah qori baan sitaa oromada dagaal baa igula socdo laakiin maanta hadday oroma iyo soomaali isdagaalaan ana oromada baa la jiraya sababta waa walaalkii isku wadan baan nahnay literally ininka awaan baa noqotay bal fiiri dhulka Soomaali dhulka weyn baan igala qaatay waa dhulka NFT la dhaho ES iyo dhulka Soomaali galbeed la dhaho meeshaad midoobi lahaydeen aan dhulkiina qaada lahaydeen baa maanta ninka era la dhaho sidii feminist oo madax hiiran oo sida u malaysid baabuunka oo absolutely wala nabdaran tahay caay madaxweynaha ay waxba kaama galadan doon aniga buu madaxweyne ku aniga adoon buu yahay aniga adoon buu siyaasadiisa laakiin madaxweynaha caayda waa khalad kadal ninka mudageysa ma eegnaadar waan kale muude laakiin idageysa ما صح صح عادي جود براد ما eegnaadar siyaasadda iyo arrimaha waa laga hadli karaa laakiin caaya khalad intuu ninka dhameysanayo fiiri Ethiopia jaanisa haysataa waa wadanaysaa taariikhna waa wadaa si saxna waa u sheegaysaa laakiin caayda yaraysi macnaha si aan dadka runta loo baahan yahay inuu ninka faraha laga qaado haya عاي ما جرت نجد عينيو عاي كان معي دبادلف وشيغ دبادلف قائن ودن fiiri idageysa kala waa laga afgoo sakaraay dhaafay eegnaadar ama khayna kuma sheega khayna ma kuma sheega kara khayinde khayna ma ka galay Soomaali ba Soomaali Ethiopia ba Soomaali mi diray ha kuleeyahay ciro waa gaal dhalay naga daa furkiis marabnaa soco war dirqaaga wax igama geline laakiin aniga inaadar madaxweynahayga ma caayi karo Soomaaliya أنا كقاي أنا ندونين مركان ninka waxaan dareemayaa marka ninka waanin maxay ahayd Soomaaliya soo hadalka soo xidhiidhan warkaas waa caadi yahay buuqiya nagu furin warkaas waa caadi khalaas adigana Ethiopian caayda naga daa ka soo wixii siyaasaddu ka hadli kartaa laakiin caayda okay fiiri aniga dantiina baan ii sheegaya mooya la hata la qaadana dagaal ulus baa ka socdo diridaba baan igala qaatay harar baan igala qaatay shashamane baan igala qaatay hawaash baan igala qaatay lafa isa baan igala qaatay andufto baan la qaatay baabili baan la qaatay war sodan magaalo idinka leediin baan la qaatay dadkii hurta ahaayeen Soomaalida walaalood intay u soo gurmalayeen calaama bay samaysteen literally alamo isaaq alam buu wataa Soomaaliland Ingiriis baa dhulka daasiyay ma jirteenka alam buu wataa anaga imaaraat baan doonaynaa war shar war dalk walaali Soomaaliland ninkan iyo Puntland buu ku washaday waarina bas wad mahadsantahay waan ku fahanay war I don't care Muqdisho hata hooyadeed baa la waas ani waxba iga magalin dadkiina Ethiopia dhexdeeda baa ma magaalada ma ay kartid magaalada maxaa ka qaldan أنا أنكر عايز لقى شو شيء طبعا بس إلى البطاقة لو قدنا مش هذا مالينا إثيوبيا ديل وحيرة بوسجلة هرتو فرنتا مركز لقى حلو إثيوبيا ديل أنا واحد بدنا وكقارنا يباجرت أنت نود سكجوري وحياة يقول يا بدنا الحياة دول كDDS شدالك الله يقول على سومالي دكان مكان حدك عروا كسيا بين وديه كرو حتى أنا جو حق وقال وحان هاي أنت اللي قداي دن إن أي سومالي شخص كلهن markii la qoday sida newska aan anaga ugu wada aragnay si lamida waa dadka meeshaas ku degan ay ku soo baraarugeen ma fahmaysan marka waa la isku maqan yahay dhulalka hadartaan hawaas harar oo sheegaayo dhul Soomaaliyeed wiligeed ahaa jirtay waana la qaatay ma fahmaysan marka Soomaalida inta badan wax ma fahmaan mideeda kale waa sax hadal oo dhahay oo aan qalinka ku duugaya baa jiro oo hadaayba aniga dhahay leena gabadha ay dhahayaan hadalkaas oo ah Somaliland dhulka maanta ay haysato dhulka weyn baa ka maqan oo hawd reserve area dhulkaas dhulka DDS shaqo isku ma lahan British protectorate ahayd dhulkaas okay waa la qaatay dhulka ilaa hadartan anaga waan ka hadli laanahay midna waan laqay waan su'aal aad weydiiseen baa jirtay maxaa adayga Soomaali oo danaheeda ka galay oo amxaara ayadiyo ku dhaha oromo waa la yaqaan maanta dhul balaarsi bay wadaa soo dhul balaarsiga oromada wado
waxaa u qoran dhulalka Soomaalida ee leedahay oo kaliya ninkan amxaarka meesha oromada oo ka fogeysanayo in anaga ka fogeysanay sababta oromkii wuxuu nala sheeganayaa dhulkii Soomaalida ee Djibouti ka dagaysay oromkii wuxuu nala sheeganayaa dhulkii Soomaalida xorta ahayd oromkii wuxuu nala sheeganayaa dhulkii Soomaalida DDS oromkii wuxuu nala sheeganayaa dhulkii Soomaalida NFD intaasoo dhul meel walba waxbaan ku leeyahay maalin walbana mooyaalada u dambeysay badda casna waa rabiya badda casna waa rabiya ma fahmaysaa marka midna waan kala baxay oo wuxuu ku dhahay jaamacadda yani ma taqaana almaas baan tagay buu dhahay okay haba taga ma xume dadka Soomaalida isku isir ma ahan baa lagu dhigaa oo dhahay arwaa kaasay yaa diidi kara maalmihii u dambeysay meenan dhigihiina ku soo maqlin Soomaali waa la wasaa anu Somalilander ah dad dhaha wax Soomaali la yiraahdo ma aqaan wiil Soomaali ah wuxuu ku leeyahay wax Soomaali la yiraahdo anu ma aqaan Somalilander baa isirkaadii ma la duufinooyaa mise ma la duufinooyo marka waxyaabaha soo dhan fakti ahaayeen baasha gadaal oo ka dhiiqeystay laakiin inta naftirkeeda inay dadkeena ogaadaan wax weyn oo tawaana kaaga mahad celinayna runtii hal daqiiqo waan soo gabagabeynay hal daqiiqo muddo badan baa hadlay horta mid baan ii sheegaya lagu siinaa ha ka cabsan summary no samay summary qana summary okay malaga galay ku soco waxa jiro Abiy Ahmed muxuu ka doonaya aniga waxaan jeclahay xaqiiq markaan ka hadlo magaca Ilaahay baan ku hadlayaa ani qofka adoo ka imaada Hargeysa ama Mogadisho iyo Jigjiga waa qof Soomaali buu agteeda ka yahay wada deris banaanay waan isoo shumaynaa laakiin oromada waxay niga damacsan tahay waxaad ku fikiraysiin way kala duwan tahay warqadan aan niisoo saaray waa 2009 nin professor baa qoray wuxuu leeyahay dhulka Soomaalida the Somali the territory that now Somali claiming are belong to the Oromo people dhulka Soomaalida maanta ay sheeganayso asalka waxa la haajiray oromada waa kaas way ku qoranta wuxuu leeyahay The long time ago, most currently Somali territory on Horn Africa belonged to the largest Cushitic nationality of Oromo, now as Somali, as Agala, and the other hundreds of years until the end of the 19th century of a nomadic Balfiri. Wahi Amin Sayihin, Ahmaguri Niki Ladah Badulka Hog Ugu Katay, Dulka Oromada Lahajiri. Hargeysa wahi uya kanan, Harta Geisa, o a gate Geda, Loda Gesehida. Barbara wahi uya kanan, Barbara. sida basbaaska kuleelka ah barbara idahan dhul walba magacyadii Soomaaligi bay bedelay Oromay ka dhigeen waxay ku tashanayaan dhulkan Oromada in dhulka Soomaalida inay sheegtaan therefore ay hadda waxa jirto arin lacag looga dhiibo oo lacag loogu bixiyo waxa kamid in la dhaho dirta iyo Oromada walaalo weeyaan laakiin aqliga ku jiro waxa kamid ah markay imaado walaaltinimada dhulka Soomaalida kaliya baa lagu qaadanaya dhulka Oromada markii la rabo walaaltinimada ma shaqaynayso laakiin dhulka Soomaali markii la tago aan dir baanaanay Oromo iyo dir walaala weeyaan ilmaha buush baatihiin anaga aniidan leh ububu dhulkiina naasiya laakiin okay ani dhulkayga waa ku siina anigana dhulkayga isiite adigana dhulkaada isii no adiga dhulkaada kaliya baa lagu qaadanaa walaaltinimada laakiin ani dhulkayga ma la qaada karo taa waa Oromada aqligay wataan okay marka labaad waxay tahay maalin walba 3,000 oo Oromo la soo geliya Hargeysa halkii hooyo Hargeysa imaado 7 aruur bay wadataa 3 ku dhufo waa 21 3,000 oo hooyo markay soo gasho oo ala hooyadii 7 unug ee wadato waa meeqa ma taqaana 3,000 ku dhufo 7 waa 210,000 oo qof baa soo gasho maalintii okay dadkaas xagee la geynaya marka waxa jiro 2025 ka bishii February waxa dhacday رئيس الوزراء إثيوبيا ورقت بوها أوكورا يونايتد نيشنكا ورقت أسوان هاي لكن هذا ما سو صار كرا موبيل كبا أوجو جورا ورقت أسوها لوجو كوري إن that minority إثيوبيا أي هرجيسا كونوا ليهن هذه لا سوير مستقبلك إن دولة إثيوبيا حق أولادها إن أي جاشو بالفيري هذا أوريد that كان إذا كمال والباني لا سو جلينو ما أوكيدين لكن مستقبلك dangerous بيكوتها عرورتينا وقبلك كريميا لده ما تكانا أو يوكرين سيد روسكا أوكاتي عالمك وهاجر وحلا ده that minority كا that minority
اوكي dad minority wadanka markay ku nool yihiin dadkaas asalka wadanka ka soo jeedan xaq bay u leeyihiin inay weeraraan ee wadanka difaacaan ma fahamtay soo sidaa darteed dadka maalin walba la soo gelinaya dhulka Somaliland taamineedu waxay tahay mustaqbalka dadka Somaliland waxay ku noqon doontaa sida Israa'iil ee u noqota dadka Falastiin dadka maanta soo dhaweysata ayaa biri qoorta ka jari doono tawayna ogaata mid labaad waxa weeyaan Ethiopia maalin walba 6,000 oo tan oo chat bay keetaa mahaladaha Hargeysa Berbera Boorama dadkaas daraagis baa la siiya adiga maxaad ku badalataa waxba kuma badalatid sababtoo ah jaad baa lagu soo gelinaya dad illegal baa lagu soo gelinaya dadka illegalka lagu soo gelinaya halis bay ku yihiin mustaqbalkaada tusaale aniga kama soo horjeeda Somaliland iyo Soomaaliya dhexdiina ma galay laakiin waxaan leeyahay qofka Somaliland Ethiopia markuu aadaya fiiriya waa kaas oromada waxay soo leedahay Hargeysa is Ethiopia city fulan waxa weeyaan dadka Somaliland markay bahayaan dadka Somaliland markay Ethiopia deal waa discussion garanayna noo soo gaabay way okay waa soo gaabina dadka Somaliland markay Ethiopia galayaan visa laga rabaa si legal bay ku galayaan qofkay u socdeen bay sheegayaan taleefankooda bay sheegayaan ticketkay ku soo laabanayaan bay tusayaan dadkay u bahayaan bay tusayaan laakiin way dadka oromada ee isaga soo galaya wadankiina halis buu ku jira inta weeyaan sababtoo ah Ethiopia hadalkayga si fiican u dhageysta anaga sharci baan isticmaalnaa sharcigan si fiican u dhageysta 195 qof baa ay daawanayso Ethiopia had ma taqaano ilaa hoogeena meeshuu nageeya baan leenahay anaga had iyo